soo dhawaada qiyaarta sharafta leh meel kasto caalamka ka joogtiin xilli kasto idin tahay waxaan idin ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxaan idin rajaynayaa caafimaad qab waa wiilkiini waa walaalkiin waa awowgiin Cimraan Cabdirashiid Yuusuf halkaad iga daawanaysaan waa janaalkiini waa janaalkeygii Cimraan Cabdirashiid Yuusuf hadda soo gaartay fadlan subscribe-ta share-ta like-ta comment qurux badan inaad soo xariiqda hanaga iloobin hadda hore noola joogtay walaal jiraata jir oo joog mar walba ku leenahay halka taagana hadana soo gaarsiiyay si share garay muuqaalka wuxuu ka mudan yahay si saaka maxaa ku wada mise caawada mise galabtaada waqtiga ku soo gaaro waxa ku wada kabeere fasas joker dhaxda anaa ku jiro falanqeynta waxa ku wada inta ugu dugul iyo waxa ka dhaha iyo ra'yi muuqaaladan dada ka soo dhaxal dada soo dhaxgalay dada maaragtay isku dira dada war u kala qaad dada wixii la isku qabsaday iyo barnaamijko idil waa ka wada hadli doonaa waa falanqeyn doonaa balse marka hore muuqaaladan ila daawada aqyaarta sharafta leh duqbilo ka hadlay arintan waxaan markiina maanta ka hadlo waxaa social media ka arkaya gabadha jilaaga ah ee caanka la wada garanay Nimca Joker walaashay madda saaxiibaday iyo walaashay Farxiye Kaba Yare oo ayadana aad isugu dheernahay oo gabar qiimo badan oo wanaagsan ah oo social media isu marinayo aflagaado waxaan arkayaa rag iyo dumar u kala safarayo warka iyo xanta iyo xumaatada u kala qaaday videoga halaas ku egaa waxaa jiro baryahan ama bilowday isbuucii la soo dhaafay dagaal laba qof dhaxmanay labada qofna saa hor idin ku sheeg waa Kaba Yare iyo Joker dagaalkaaseeto baraha bulshadu ka dhax qarxa bab hadda waxa waaye hadaa qof isdagaashaan dadka caanka leh waxa is qabsanayaan murta labada kale xaliimooyinka kale iyo nimanka kale haday is qabstaan jiirooyinka la isku gaadi karaa leh jukeena laakiin hadda qof caan hadaa is qabstaan social media ku soo fariisana dubku ka dhiga adina dubka ka dhiga soo fariisanaysa okay waa la is qabsaday xaggaas ay dagaal yar ka qarxay sababtu u qarxay ma hore isku sii haysteen ma iyaga wax ka dhixiyeen see maxaa keenay maxaa sababay mar kale duqbilo kuugu celiyo ila daawo waxa sababay dagaalkaas iyo waxa keenay waxa socda hadda sida wada ognahay la soconno fanaanka dalmar yare ayaa show wuxuu ka dhajistay meesha la yiraahdo wadanka la yiraahdo Australia asaga markuu dhajistay isla waqtiyadu dhajisanayay waxa ayadana soo dhajisatay fanaanada qaaliga ah ee aadka loo jecel yahay aniga aan waliba aad u jeclahay King Jama marka waa happy new year ka inay ka heesaan bay doonayaan marka waxa dhacday fanaan dalmar saaxiibkay wanaad isugu weynaa asagana inuu showgii uu kansalay showga Australia uu rabay inuu ka dhigto maadaama gabadha walaashii ay bartaa dhajisatay inuu kansalay ninka la yiraahdo dalmar marka arintaas oo marka suuqa iyo yuxuudaas suuqa ka socoto ya labadan gabdhood muddo dheer macnaha xaaladoodu aysan saxsanayn kastoo dad isku wanaagsan oo isku fiican yihiin oo riwaayado badan oo dhigeen aan wada daawano la soconno sida hadda video aan ka daawanayso duqbilo uu ku sheegayo ama dhammaan dadka baraha bulshada isticmaal dhamaantood ay ka warqabaan in dalmar uu Australia show ku dhigan rabay halkaasito markuu show asoo raba inuu dhigto waxa ka daba imaatay King Jama oo iyadana show dhiganayso marka arin halkaas markay marayso dalmar waxa la lahay waa la hadlay showgaas maadaama gabar walaasha dhiganayso faraha ka qaad amal asraa tanaazula asaan rag ah warniyo dalmar oo jiro joog markay arin halkaas marayso oo dalmar uu tanaazulay dad la soo hadleen la dhahay iska tanaazul asa fikradiisa ha ka imaato ha tanaazulo waxa baraheeda bulshada soo dhigtay Farxiye Kaba Yare video ee ku sheeganayso in ayada dalmar la hadashay arintaas ay tan xalisay hasameysay sameeyeen anigu barta ay soo dhigtay garan maayo sababtoo ah videogaas mar damba ka daawday dad dambe oo soo dhigay Facebook aan ka daawday markii ugu horeysay kadib maxaa dhacay iyadana cimaamada waxay ka qaaday dadkan gadaalka gaarka ah Farxiye Kaba Yare kadib waxaa dhacay in Joker ayday u soo jawaabto Nimca Joker ayday u soo jawaabto
فيديو laga sameeyo oo hal video ah oo isku jawaabayaan aan ku soo siideynaya daawasho wacan anu meelaha ma daawaday waxa la ii sheegay islaantii orgiye ahayd oo dhahayso gudoomiyaha fanka ahay naya fanka dalad weyn waayo horta fanka isku soo koobin sababta aanu soo hadlayna waa inaan ahay afayeenka fanaaniinta Soomaaliyeed intooda xushmada leh ee respectiga leh ayaan afayeen u ahay uma ihi inta saqajaamada ah adiga iyo hada fanka ku soo koobin fanku waa weyn yahay majaajilistu leeyahay abwaan buu leeyahay musician buu leeyahay laxamiistu leeyahay heesaa buu leeyahay gabyaa buu leeyahay xataa wariyaha fanka ku jira you know that horta reebaadiinimada iska dhaaf qofii tuuladii yareedo dameeraha ku raaci jirta ka soo oroday Mareykan lagu keenay qabyaalada ku waalatay hadda waxa keentay laba fanaan oo sharaf leh oo Soomaaliyeed oo aan labadu intaas waxa waaye jawaabtii markii ay dhahday aniga waxaan ahay afhayeenka fanka dadka maaragtay xishmada leh aan iyahay xishmada aan iyahay iyagana oo haayo ba afhayeen u ahay u hadla u dooda okay markii video aan Naciimo Joker soo duubtay kadib maxaa dhacay kabeer eedana video ku soo imaamaday ila daawo وعلكبا كدي وعلكبا كديبا والله soo dhoofsaday waa la korsaday waa la biili jiray waxba la baray afkaaga wuxuu ku diirbeelay ilmacaay iyo wicilaa ku joogay wicilaa haystay wicilaa ku joogay sababta ilmaha u ataagayso oo ilmaha u caynaysan marka dadka baraya reality ilaahu haddaan hal beena aan ka sheegan ku dhahay ilaahu haddaan hal beena ka sheego caawa nabad aan ku seexan dibda ban Allah arkin wallahi iyo billahi talaa soo magac ilaahi ma aha inaan been ka sheegin saa adigu story been tahay oo xalay samaysatay markuu ninkii kugu qabsaday afqalooc uu ku yiri aan kaba yar oo ay soo fashishay waxay ku soo fashay Facebook in anigu aan ka dambeeyay caydeeda ay sheegtay story samay xarashan u hayay 3 sano ay caynaysa dheh story sida aad u samaysay xalay يا والله إنا نسميني هيستوريكا مصرينا لكن حقيقة كهالله صارت الماء وعيني سمطانا مريكان اسكو مرة نمت مريكان اسكو مرة نمت 2004 كي نمت I think أنا 5 كي هي وقتي قاعد ما تابعنا أنا ما 6 كي موجود اسكو مرة إيماني هو يا ذا وضع كان إسلام إيماني يولالكي hooyada aan garab taagnaa caawinayay aan warehouse u shaqo tagi jiray familkaygan biilayay I was fucking 20 years old markaa Mareykan imid sheeko markii halkaas maraysa isku jawaabitaan macnaha ku jiro la soo galiyay ilmihii wicilo taas la dhahay anigu meel lagu dhahay ma arkin laakiin waxa waaye la yiri ilka casaa dhahay hadda ka hor ku tilmaamay saas hadda ku tilmaamiya Allahu a'lam maxaa kale ku soo hare ayadana markii videogaaneeto ku jirtay waxay gaf ama qadaf u geysatay ilka case oo xoogaa ku tuturtay imaamada ka qaaday ku tuturtay oo isku tutuuray meesha waxa waaye hadii inta la soo fariisto liisku ma aabiyeelay imaamada la iska tuuraa wax walba qofka hadaa ogeed in rag isku caayaan khaniis dumarka waxay isku caayaan dumarka sharmuudo cunuga haysata wicil balaayo waxaasna la sheega afkeena ma soo mari karno okay sheeka labadii qof isqabsatay social media markii laba qof isqabsato dad badan ay ka dhax faa'iideysto hadaa ana adiga codad ku hayo oo soo karbaasha hadaa adiga ana codad hayso way soo karbaashay hadaa qof isku dhigno okay ninka ugu darnaa oo ka hadla arintaasito waa kan ay daawada shariifa Allah shariif walaalayaal Naciimo Joker waxa way gabar waxa way iska jecel inay wax iska noqoto gudoomiyaha ruuxiga jubta culus oo anaga dhow gudoomiyana noo ah waxa way mataqaana haddana waa aydan wax faxiy wax ka sheegaysa Naciimo adiga ninkan guriga ku fadhiyo xalal ma kugu qabaa Mareykanka iyo Soomaalida ilaa Soomaaliya majarteenka joogo dhan Umar Maxamuud waa ogyihiin Umar Maxamuud ma aha dad oo laanga ma dad masabo laan dheeryaal way gabadhood markii la guursanay inuu meher ku dhaco way inuu Soomaaliya ku dhaco way marka Umar Maxamuud adiga waa ka tufan tahay cid walba ogtahay Umar Maxamuud wallahi bilaa gabadha waa ka tufan yihiin gabar dhan oo nasab oo laan dheeraa oo nin ogaadil iska soo xareysatay ee leedahay waa qaba mana ku aroosin been way ilaahay uu ogi adina ogtahay ninka kuma qabo ninka xalaa kuma qabo
laba habeen la wiig kadib wiigii laba habeen uu imaanaa midiya la soo galaa waxa iska dhigay inay soo joogaan wallahi bilaa tala waa hadda kor ay dhaartaan waan ku cilnaa Naciima Joker ilka cas isba qabaan okay ninkan dhaar cad ayuu ku maray Naciima Joker iyo isma qabaan iyo ilka case isma qabaan dhaar cad ku maray ninkan horta hadii la dhahay sharci islaam hadii la dhaho waa dadkaas hadii la soo ogaado ama cadeento inay isqabaan oo isguursadeen oo waraaqadii isku meheriyeen la soo dhigo ninkan diiniyan ahaan waxa way kaadib way waan la jadaleena diin ahaan macnaha sharciga islaamka markii loo fiiriyo waa been abuur cad waa buhtaan cadiim waa been abuur cad waa soo ma garanaysid uu ku sameeyay dadkaas waa loo soo jawaabay ana inta u jawaabay qofkaana isku fikir noqon oo si fiican u jawaabay Xuseen Coach ila daawo Naciima Joker ilka cas isba qabaan ninka waa qarabta miyuuska qarabta aydan waa qarabta wallahi bilaa tala ina beeshay ina gabar iyo wiil islaameed ina dhahdid labadood bazaani waaye todobada oo umada halaagto nabiga ku tilmaami Umar ibn al-Khattab asigoo amiir al-mu'miniin maalin saxaabada oo ag fadhiyo wuxuu dhahay Umar ibn al-Khattab hadoo idin dhaho wiilkan iyo gabadhan ayagoo zinaysanayaan arki idinka maxaa ka dhehleheedeen Ali bin Abi Talib waa meesha fadhihi wuxuu dhahay saddex markhaatina asigoo amiir al-mu'miniin Umar ibn al-Khattab hoosoo fiirihi mayo dhahay markaas Ali bin Abi Talib wuxuu dhahay adigan ku karbaasheena war dheedheel ma ahan afar markhaati xitaa haday imaadaan waxaa lagu dhahay hal shakiyar hadaa laga arko afartooda isla karbaasha dheedheel maahan ina qof oo zina inuu gali oo dhahdid adigoona arkin aniga qabiilkan isku haysatiin ma ogihin hadalkiisaas anigu waa taageersanahay waxa cadeen u keen hadaa cadeen weedin adig kaadiba tahay waxa waaye beenta qofka sheegana waxa waaye xukunkiisa islaamka waa la wada aqaana soo ma garanaysa anagna islaam aan ahnay oo sheega maadaama hadda maanta dawladda wadan u jooga hada lagu qabsan karin lagu xiran karin oo dacwo lagu qaadi karin laakiin sharci islaam ahaan wuxuu ka qabo waa sheegayna anaga okay dadkii soo dhaxgale ninkaas ayaa ugu darnaa oo been abuur cad la imaaday okay dadkii soo dhaxgale waxa kamid ah Captain Daahir Cali Sow islaanka faana jirtay gabar ay dhashay oo weyn oo ayada la eg ayaa waxa la yiri naamba dhalees xambaa tahay oo intaas oo nima ku guursto wax ma dhal ma ayadan gabar isku qaadeen habba gabadhay Daahir Cali Sow asan waa soo dhaxgale فيديوهال بدن و تيك توك soo dhigay oo ma aragtay halkan video ka soo qaatay aniga videoyaal fara badan oo soo dhigay oo ma aragtay uu ku jafaayo Naciima Joker okay asan waa loo soo jawaabay yaa u soo jawaabay ma taqaana ninka ku caan baxay karbaash xalaal ayaa u soo jawaabay daawasho wacan karbaash xalaal xaqiiqada jirta ka hadla runtan ku sheega Daahir Cali Sow hal kelmad baan ku leeyahay kelmadda ku leeyahay waxay tahay inaad dirac iyo gorgorod soo xirato gabasaar Naciima Joker iyo Farxi Kabir dhexdooda dhaxgal xaqiiqatan sababtoo waxay tahay Farxi Kabir iyo Naciima Joker waa laba gabdhood Soomaaliyeed maanta hadday isku dhaceen biri way heshii karaan Daahirow dhiqal waa kula jirtaa maadadan ku gudaraya waxay tahay xaniya rageed lama taabto Daahirow waxa ku dheedheelayso waa xeelo rageedna in la iska marin waa ogtahay waxa aflagaadeynayso waa nin xaaski haddaba sheeko markay halkaas marayso waxa la leeyahay team habiqleyso iyo team Kazo ma is arki doono su'aasha isweydiinaya taas waa maadaama Daahir Cali Sow oo faraha la galay ama uu ku xadgudbay xaaski ilka casi oo hogaamiyaha ah team Kazo hawsha halkaas ay maraysaa akhyaar shirtay covidan igu qaata bariyahan odagii ma aragtay cimaamad ma lahan waxa waay madaxii dhul way waay kuwa waxay dhaheen madaxaaga dhukuran naga soo qarso waa ku nacnay acuudi bilayso madaxa naga soo qari akhyaar sharafta leh dagaalka halkaas u maraya ani fikrad ahaantayda waxa dhii lahaa roolaalayaalow isdhaafa maanta adduuma bari aakhira waa dad caanaatay ceebihiina ha fashilina ceebihiina ha barbaarina qofka muslimka wuxuu ilaahay leeyahay qofka qof muslim ceebtiisa astura ilaahay aan ceebtiisa astura u leeyahay marka isku ceeb astura dad walaalaatihiin heshiisiye dadkan war ha u kala qaadina ha isku dirina waxa waaye wanaaga ka shaqeeno maalin walba inay isku dhignaan waa laga fiican yahay ina taakuleen ma jirto maanta hadda fiiri qof maanta ku dhahay hebel taakuleen ma jirto youtuber miskiin oo hoos joogo kor soo qaaday waa caawiye ilaa uu ma aragtay meel fiican ka gaar ma jirto laakiin maalin walba aragnaa lahu qof isku dhagan
laba qof oo caan oo is haysato aragnaa laakiin mid miskiina mid oo kaal arag caawinay badanaa ma dhacdo way dhacdaa laakiin badanaa ma dhacdo war intaas idin dhaafaya intaas hana kala gaarto falanqeynteen intaas ha ku ekaato akhyaarta sharafta leh kulanti dambe oo xiiso leh koofidan igu qaata baryahan waxa ka istaahelene isii share video